dhanka kalena degmada Buuloburte ayaa waxaa ka dhacay kufsi loo geystay gabar yar oo 8 jir ah oo lagu magacaabo Sabriin Maxamed Xasan. Gabadhan yar ayaa waxaa la sheegay inuu kufsaday nin ka mid ah ciidamada dawladda ee ku sugan degmadaasi. Sabriin Maxamed Xasan ayaa caafimaadkeeda waxaa lagu tabiibayaa isbitaal ku yaala degmadaasi. maamulka degmada Buuloburte iyo weliba ciidamada ammaanka ayaan wax tallaabo qaadin. waxayse noo sheegeen in weli uu socdo baaritaan. gabadhan yar ayaa waxaa la sheegay inay joogtay guriga ayaydeed, isagoo ninkaasina uu bannaanka ka kaxaystay kadibna uu ku kufsaday guri ka mid ah guryaha aan la deganayn ee ku yaala degmadaasi. gabdho yaryar oo iyagana goobjoog ahaa ayaa waxay sheegeen in ninkani wejigiisa ay aqoonsan karaan, ayna ku arkeen mar walba isagoo la socdo ciidamada. waxaan ka codsanaynaa maamulka degmada Buuloburte iyo weliba cid walba oo gacan ka geysan karta in ninkaasi la soo qabto cadaaladana la horkeeno. waxaan kaloo ugu baaqaynaa maamulka Hirshabelle iyagana inay gacan ka geystaan sidii loo soo qaban lahaa dambiilahaasi. halka warkaan ay kala socotaana waa Radio Debley degmada Buuloburte.